يكون عايزهم دجال كجلا وواجب حسبنا تاريخ معنا وياسين الهين أنا مقع عايز طبعا تبل رجع فعوينان يقول فعوينان والله وحن أفريقيا دجال كانوا بسان عشورتي كقاضي سيدك الشعب وخير بالله هذا هو سيسي وسارت سيسي وتريمات ذا كوح سوقايا هذا المسؤوليات هاي هذا مدحوين النمط هاي عنكم وحاجة إسي هذا السين وأنا عيا odayaasha iyo waxgaradka beelaha Cali Salebaan Ismaaciil Salebaan iyo sidoo kale Ugaad Salebaan ee ku nool deegaanada kala duwan ee Puntland ayaa si adag uga hor yimid damaca Siciid Cabdulaahi Dani ee uu ku doonayo in uu ku soo abdiro ciidamada dawladda federaalka taabacsan ee jooga deegaanka lagu magacaabo Kodmo xiisad culus oo ka taagan deegaanadaasi iyo odayaasha oo ku hanjabay in ay diyaar u yihiin in ay dagaalka ay ka qayb qaataan haddii Siciid Cabdulaahi Dani uu joojin waayo colaadda iyo dagaalka uu duminayo waxa ay sheegeen in beeraha walaalaha ah ee ku wada nool deegaanada Puntland beel waliba ay haysato hub iyo waliba saanad military iyo ciidan u gaar ah ilaa iyo haddana aysan jirin meel lagu iclaamiyay in beelaha lagu sameynayo hubka dhigis beelna aysan beel ka qaadi karin hubka ilaa la helo dawlad Soomaaliyeed oo dhameystiran oo dalka ka dhigta dalka ka samaysa hubka dhigis sidoo kale deegaanada ay ku nool yihiin beesha Cali Salebaan ayaa waxa laga sheegayaa inuu ka socdo dhaqdhaqaaq xooggan iyo waliba gurmad culus oo loo fidinayo ciidamada hadda ku sugan deegaanka Kodmo oo hoostaga gobolka Kakar ciidamadani ayaa horey waxa uga baxeen degmada Carmo iyagoo ka guuray wadada dheer ee laamiga ah ee isku xirta magaalada Boosaaso iyo qaybaha kale ee Soomaaliya ciidamada inay ku dul dagaalamaan dadka maxasta ah ee degan degmada Carmo ee gobolka Bari arrintan ayaa noqonaysa xiisad kale oo dagaal oo ay wajahayso Puntland taasi oo dad badan ay u fasirayaan hadda in hawshu ay isu bedeshay arrin beeleed maadaama ay u arkaan beelaha walaalaha ah ee deegaanada Puntland in Siciid Cabdulaahi Dani qorshaha uu wada inay tahay beel hubka ka qaad oo beel kale si qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka deegaanadaasi ayaa si adag uga hor yimid waxaana hadda socda dhaqdhaqaaq xooggan iyo gurmad xooggan oo ciidamadaasi lagu garab istaagayo taasi oo u muuqata in Siciid Cabdulaahi Dani uu kula kulmi karo fashil siyaasadeed iyo waliba in beelo